anigoo ah Yuusuf Dhaqane Kadiye waxaan rabaa in yar inaan ka hadlo arrimahan soo cusboonaaday ee ku saabsan Gado guud ahaan Jubbaland gobolka Gado waxay la tahay Gado dawladda federaalka ee Soomaaliya way imaatay ciidamada keentay saraakiil bay keentay dawladdana dalka iyada xukunta waxay la tahay dawladdan muddo hadda 3 sano shaqaynaysay inta ay shaqaynaysay dad baa caqabad ku ah dadka caqabada ku ah waxa kamid ah ninkan hadda jooga meesha la yiraahdo Mandera ee la yiraahdo Indakori ninkaas sida lala socdo waa dambiile wuxuu ka sameeyay waxa la og yahay meesha la yiraahdo Dolow sidaas darteed Amnesty International baa qabsatay dawladda federaalka haysay xabsigeena uu ka fakaday waxay la tahay marka dawladda dariska ee gacanta ku haysay uu la joogo sharciga ha ilaaliso darisnimada ha ilaaliso wadajirka ha ilaaliso dawladnimada ha ilaaliso dalka Soomaaliya dawlad buu leeyahay madaxweyne uu leeyahay ra'iisul wasaare uu leeyahay baarlamaan buu leeyahay sharci buu leeyahay sharciga dawladda in wax lagu xaliyo oo dawladda kale ay ixtiraamto oo ninkii dambiila la isku soo gudbiyo sida ayada ayaa wanaagsan waxay la tahay maamulkan hadda meesha ka jira maamulkii hore ee Jubbaland waqtigiisa uu dhamaaday dawladda federaalka waxay dabcan inay doorasho ka qabato doorashadii waa la diiday hadda doorashadii hadii la diiday oo meesha in doorasho ka dhicin wax kubashubasha ay ka dhacday oo dawladda aan amar laga qaadanaynin oo cid la maqli aysan jirin cid marka laga amar qaadanaya Jubbaland asal ba xagee laga xukumaa ma Soomaaliya mise waa dal kale annagu waxaan ognahay inuu Soomaaliya yahay meeshii lagaga gooyay kulay nimanka xukuma sheegi doona yaa sheegi doona marka anigu waxay la tahay nimanka Jubbaland xukuma Soomaaliya ayay ka tirsan yihiin Jubbaland waxa ku doodaysaa in cunaqabateyn la saaray diyaaradihii gaar ahaan gobolka Gado qaybo kamid ah in faragelin sida ay u sheegayaan lagu hayo in maamulada iyo dawladda dhexe curiyaaminayso taas maxay u jawaabaan Jubbaland aniga waxay la tahay cunaqabateyntan shacabka la saarayo waxa u soo jiiday mas'uuliyiinta hadda talada haysta waayo dawladdii bay tala ka diiday beesha caalamkii bay diiday cid inay la hadasho ama ay wax ka maqasho ayay diiday marka sidaa darteed dawladdii maadaama ay dalku dawlad iyadu ka tahay inay cunaqabateyn u adeegsato oo diyaaradihii laga xayiro oo dhaqaalihii laga xayiro oo waxbarashadii laga xayiro oo caafimaadkii laga xayiro taa ayada waxa koos gareeyay oo sababay maamulka hore ee Jubbaland ee meesha ka jiray ayaa diiday taa ayada waxaan leeyahay dawladda federaalka dalka ayada xukunta ayada dawladda ayada maxaan ku dhahdaa calanka Soomaaliya matalaysa ayada federalismka matalaysa ayada wixii sharci ah looga dambeynaya maalin ugu dambeeyay gobolka Gado Luuq iyo Baardheer ciidamada lagu daabulay dadka siyaasadda indhay waxay leeyihiin Muqdisho dawladda Soomaaliya kama wada tagto marka soo lama oran karo dawladdu ciidamada ay ku soo Baardheer keenaysa iyo Gado soo ma fiicnaateen inay ku xaliso yani Muqdisho caasimadda ay ku xasiliso maadaama gobolada hadda uu dhib ka jiro waxay ila tahay anigu ciidamadan gobolka Gado la keenay inay sax tahay maxaa yeelay Muqdisho dadka jooga siyaasadda sheegan haya waxaan qabaa waxa sababaya in laga saari waayo dadka meesha in maxaan ku dhahaa Muqdisho la xalin waayo waxa sababaya dadka siyaasiyiinta sheegan haya sida darteed marka in base kale la furo oo gobolada la xoreeyo oo degmooyinka la xoreeyo oo horay loo dhaqaaqo waa sax baan qabaa anigu ciidamada gobolada lagu xoreyn lahaa meelaha nimanka haystaan lagu qabsan lahaa soo kuma hadda balad xaawo oo nabad iyo maamul ka jira inuu keenayo dadku ay leeyihiin waa waxa loo baahnaa ciidamada horta waxay matalaan oo mas'uul ka yihiin 18 gobol ee Soomaaliya gobol keligii loo igmaday ama loo qoray ma jiro mar haddii gobol keligii oo loo qoray aysan jirin in gobol walba oo caqabad ka jirto ciidamada loo daabulo oo la geeyo sax weeyaan qabaa anigu waxaan ku baaqi lahaa shacabka inaan lagu kor dagaalamin waxaan ku baaqi lahaa shacabka inuu amni helo waxaan ku baaqi lahaa shacabka taysiilaadka uu u baahan yahay inuu helo dawladdana shacabkan maxaan ku dhahdaa ee u turto dadkan maamulka sheegan haya ee mucaaradka ah ee dawladda dhibaatayn haya ee hortaaganna ha ka leexdeen oo dawladda shaqadeeda ha u ogolaadeen